السلام عليكم صاحبيال كسو dhawaada janaalka Somali Tutorials fadlan janaalka hadii aad ku cusub tahay subscribe inoo saar oo inagu dhiirigeli sidoo kale muuqaalka inoo la garay hadii aad hore inoo joogtayna waxaan ku leeyahay mar labaad soo maanta iyo muuqaalkeena waxaynu ku baran doonaa xirfad marka lagu ogaan karo qof walba marka oo YouTube isticmaala hadii YouTube kiisa aad geliso information kiisa oo dhan waxa jiray saddex muuqaal aan soo geliyay shalay kaliya hadaba saddex muuqaal waan daleeday sababta aan u daleedana wax kale ma ahan ee waxa ay tahay waxaan go'aansaday in aan idin la wadaago qaabka wax loo ogaado hadaba hadii aan muuqaal ka soo sameeyo oo aadna commentiga aad igu soo qorto wax micnaa ma soo kordhinayso waxaan garanaysaa janaalka inuu nagu buuxsamo oo maalin walba muuqaal soo sameeyno waxaas quseeyo oo kaliya aan soo gelino sidoo kale marka waxa go'aansaday in marka muuqaalaas aan bixiyo kadibna aan idin tuso qof walba u baahan isaga ha sameesto taas ila wanaagsanaayd waayahay marka inta aan muuqaalka u guda gelin waxa aan ka codsanayaa hal codsi aan wataa asxaabta ku xiran ee 1300 ah ee Somali Tutorial ku xiran wiliga wax maanan ka codsan waa first time codsigan waxa uu ku socdaa asxaabta ku xiran janaalka Somali Tutorials waxa idin la hadlayaan waa aniga yaani Somali Tutorial hadaba marka codsiga waxa uu yahay wax kala ma ahan codsigan qaasatan waxa uu ku socdaa dadka aanan joogin Soomaaliya dabcan janaalka wuxuu ka furayaa Soomaaliya 1300 ku xiran maybe inay 1000 Soomaali ay joogto kaliya 300 ee dunida daafeeda ay kala joogan ha naqato Afrika meel kamid ah ha naqato Europe meel kamid ah ha naqato America meel kamid ah iyo sidoo kale ha naqato Asia meel kamid ah meesha doonta ha naqato hadaba hadii aadan joogin Soomaaliya oo aad joogto meel kale markaas oo adduunka kamid ah janaalka waxaan u furay qayb marka monetization ah ama xayeysiin ah ama Google AdSense u taqaano hadaba muuqaal walba oo Somali Tutorial aad daawanayso hanaqda muuqaalka hadda just aad daawanayso in muuqaal ay marka aad daawanayso waxa ku soo bixi doona xayeysiinta hadii ku soo baxdo waxaan ka codsanayaa in marka Skype aadan dhihin sidoo kale tan aad ii kala garas hadii aad awoodo marka qof walba marka ka maqan Soomaali aan joogin way u soo baxaysaa xayeysiinta waa qasab marka codsigii waa inta maadaama aan asxaabta janaal ku xiran aan hore wax uga codsanin maadaama ay tahay first time aniga igu daaya wixii update ah wixii knowledge ah wixii aqoon ah wixii aad soo codsataan oo ka soo hadal dhahdaan waxa soo dhan igu daaya ana waqti idin gelinayo idin soo gelinayo inta yar ee wadanka ka maqan ee adduunkan kala joogta waxaan ka codsan Kenya kugu sukayso waxaa ka codsanayaa in marka xayeysiinta aysan Skype iga dhihin hadii u soo baxdo sidoo kale hadii awoodaan ay kala garayaan kaliya inta wixii ka soo haro hool iyo juhdi iyo waqti ah ana igu daaya waayahay muuqaalkeena aan u guda galno marka muuqaalkeena waxaan ka bilaabaynaa halkan dabcan searching ayaa tagaysaa Google-kaaga kadibna waxa qoraysaa social blade social si loo qoro waa taqaanaa wax kaas kor ka soo muuqda dabcan la kuwan qorayaa social b l a d e inta marka qorto enter leedahay enter marka sida u dhahdo waxa sameynaysaa halkan waa kana YouTube Twitter Twitch Instagram waxyaalahaas dhan oo qoran linkiga waxaana saaran icon kana saaran dabcan kaliya waxa leedahay click linkiga kugu soo horeeyo ee aad ku dhifato ayaad click gareynaysaa dashboard kana ku soo baxay dashboard ka markuu ku soo baxo ama iska diiwaan geli waa ka register halka ku qoran ama adoon iska diiwaan gelin isticmaal jooska ama iska leh halka waxa ku qoran enter YouTube search yani YouTube username qofka magaca YouTube ku isticmaal geli hadii YouTube aadan rabin inaad fiiriso wax kale aad fiirsan halkaan daaqadana furaysa waa kuwana Facebook Instagram Twitter TikTok waxaan dhan xaalada kulli trofo meesha ku jiraan marka YouTube kan nooda YouTube kan quseeya enter username loo lahay dadkan hore uu fiiriyo dadka video aan ka sameeyay marka waxaan ka bilaabayaa hadda waxaan ku tusayaa fiir Maxamed Qadar kala ku dhifanaya Maxamed Qadar markaas uu rufto waxa la search leeyahay ama enter leeyahay inter marka dhoo waa kana janaalka Maxamed Qadar xogtiis ma soo baxday fiiriya halkan waxa ku qoran upload 5224 video soo galiyay waxa uu haystaa 998 subscriber fiidiyooshiisa dhammaan wuxuu haystaa 220,114,905 oo views ah wadanka uu xiran waa US
janaalku waxa uu quseeyo ama categories waa sports waxaa la furay 4 February 2016 waa informationkii oo dhameystiran waay qaybta marka lacagta hadii aad rabto inaad ogaato waa tan ayada waxaa lagu dhahay isbuuci waxa uu ka sameeyay horta meesha kuma xusna laakiin waxa sameynaysa bishan inta uu sameeyay halkan 36000 waxa uu qeybanaysa 4 maadaama bishi 4 isbuuc ay tahay 4 oo qeybanay marka isbuuc waxa uu sameeyay saas ku kartaa hadda marka wuxuu ku dhahay bishi wuxuu sameeyaa inta uu dhaxle $2200 ilaa $35200 inta ka dhaxle ayuu bil walba sameeyay celis isbuuci marka aad isku qaybsan karaa halka sanadkii uu sameeyo $26400 ilaa $422 ka Mareykanka ah waayahay marka janaalkan horta geedkan been ma sheegayo xitaa ana maanta dadkay aan galiyo oo ku soo saaraya informationka wax in janaal aarta ku barobay kartaa hadii marka aad tahay qof YouTube rajo kale hadii aad tahay qof YouTube waqti u haayo hadii aad tahay qof talent leh hadii aad tahay qof yaqaan qof saaxiibkiisa YouTube isticmaala isagana ka caajisan hadaba ogow qof walba si marka motivated ama dhiirigelin ay kugu noqoto kadibna aad go'aansato in YouTube channel afurato xirfadaada iyo skillskaaga iyo talentkaaga aad ku soo gudbiso waayahay qofka labaad aad fiirinayna waxay tahay inta ay taabanayna waxaan ku tusayaa Asad Xajiyo markaas u taabato 27 kadibna aad sirji dhahdo wuxuu ku soo saarayaa janaalkiisa waa kaasa waa bannerkii profilekii Asad Xajiyo waxa uu soo galiyay 1061 views halka subscriberskiisa ay yihiin 1,330,000 subscribers ah viewshiisna ay heleen 207,929,324 views ah countrygiisana waa Malaysia طبعا waa wadanka uu joogo yani channel type-kana waxa people u qoran categories waa people wixii people la xiriir entertainment isku soo gudbiya isaga waxaana la furay December maalinka ay 30 aheyd 2019 sanadkii 2019 maalinkii u dambeysay la furay channelkan maalinka labaad waxa uu dhashay 2020 sahalka ugu jido sidoo kale to Asad Xajiyo waxa uu ka sameeyaa bishii 2700 ilaa $43,400 Mareykanka inta uu dhaxlay celis fiidiyowga ugu dambeeyay waa kana recent video waa soo daawan kartaa sidoo kale to bish sanadkii waxa uu ka sameeyaa $32,600 Mareykanka ah ilaa $520,900 Mareykanka ah sanadkii half milyan oo ka sameeyaa dhig kara Asad Xajiyo waayahay marka gareedkiisana waa B+ gareedada isbalaan janaal walba gareed buu leeyahay marka waa kaasa countryga aan ku dhahay Malaysia waay kor kaaga soo sheegay waa kaas MY ah waa kana calanki waa kana Malaysia dabcan soo jeedo marka saaxiib ana marka waxaan ka codsanayaa janaalka inaad subscribe ii saarto muuqaalka hadii la gareyso si asxaab badan ay ugu soo xirmaan saa hore kugu sheegna muuqaalka haduu like helo waxay saacideysaa in dad badan uu gaaro sidoo kale tan codsigayga ii taxgeli aniga wixii aqoon iyo juhdi iyo dadaal igu daa laakiin adina hadii aan Soomaali joogin aan ka helo in xayeysiinta ay daawato in adeero aad ma kala garayso inta kaliya maadaama aad video wax ka faa'iideyso maadaama video uu cilad ka xalinayo maadaama video uu ka anfacayo inta kaliya ii sameeyo wax weyn ma ahan marka saaxiib hadii aad dad dheer inaad fiiriso maalintii 100 qof ay kartaa hadda fiir qof saddex ku saaran baadan aan ku tusaa sharbo isna markaas aad dhufato information inna ku soo baxaya dabcan waxa laga yaabaa tactical inaad TikTok ku aragtay dadka hadlaayo YouTube ku aragtay haddana meeshii aan lagu horta Soomaaliya cilad weyn ka jirto taasa qofkii wixii uu soo ogaanaya markuu soo ogaado meel buu ku kala kacsanaya dadku uma sheegayo commentiga waxa lagu soo qoraa sidoo loo sameeyaa xagee laga sameeyaa cid kale wadaagaysa malaha aniga markii shan muuqaalan sameeyay codsiga maadaama inuu soo badanaya arko tijaabinay waxa isla dadka ameysan u baahan dhowr qof ay soo weydiis kingisiga soo samee waa bari soo samee ogaansho soo samee xala janaalka idaacada bulshada soo samee waxa soo naali soo qoraa marka waxa go'aansaday qof walba muuqaalkan daawanaa in asiga baahidiisa u guto wax walba oo rabo oo tijaabiyo because maalin walba wax ma soo qori kartid ma dhigi kartid hebel iyo fiiri laakiin hadii aad taqaano just waa samee kartaa hadii social media aladane waa ku kala kacsan kartaa ma fahanteen marka Sharma Boy kaliya wuxuu soo gudbiyay 82 video 1,140,000 subscribers ah 286,000 views ah wadankiisa uu xiran waa Kenya sidoo kale waxa janaal tabkiisa ama categories waa music waxaana la furay 18 October 2019 Asad Xajiyo wuxuu ku horeeyay 2 bilood dabcan halkan ka arkayso waa kaas calanka Kenya wax walba ma ahan ku xusan waa sax gareedkiisa waa B halka Asad Xajiyo oo B+ ka ah isaga waa B waayahay wuxuuna ka sameeyaa bishii 1200 ilaa 19,000 sanadkii wuxuu ka sameeyaa 14,000 ilaa iyo $229,000 Mareykanka saaxiib yaan ku daalin
waa very important in aad subscribe ay saarto muhiim bay tahay codsigeena ay tixgelisana muhiim bay tahay waxaan rajeynayaa in codsigeena ay tixgeliso janaalkana subscribe aad saarto asxaabtana aad igu share gareyso maanta horumarkaaga waa horumarkayga ana horumarkayga waa horumarkaaga marka waxaan rajeynayaa ay garab qabataan aad soo dhaweysaan sida hore aad soo dhaweyseen si ka wanaagsan amar aad soo dhaweysaan waana mahadsantiin tan iyo muuqaalka xiga sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh